جزاك الله خيرا. waxyaabihii laga hadlo waxaa ka mid ahaa fitanta in looga badbaado barashada diinta. marka walaalka su-aasha soo qoro wuxuu leeyahay sidee uga badbaadi karaa, sidee u baran karaa diinta islaamka, sidee u baran karaa? diinta islaamka barashadeedu waa fududahay, ma adka. walaqad yasarna alqur'aana lidikri, qur-aanka ilaahay waa fududeeyey. barashada diintuna qur-aanka asal waa isagayna ka bilaabataa. waxaa lagaga baahan yahay keliya ta la imow, qasad la imow, iraado jaazima, go-aan inaad diinta barato inay dhabkaa tahay, go-aankeedina la imow. dadaalkii ku dar, go-aan keliya ma ahee dadaalkiina ku dar. dadaalkii markaad ku darto inaad hesho cid aad wax ka barato iyo meel aad wax ka barato, iyadana waa mutawafir. culimadii baad joogta, masaajidda laga bartaa, madaaristii goobihii diinta laga baranayo waa la helayaa. bal iskaba dhaafay duruus fara badan iyo wax badani waxayba ku jiraanba iyagoo duuban baaba la heli karaaba, oo mawaaqiicda muxuu ahay bay ku jiraan. marka inaad hesho iraadadii iyo dadaalkii iyo alisticaana billaahi, xirsi marka lagaa helo inaad ilaahay kaashatood kaalmaysato, iyo markaa kadib inaad hesho cid aad wax ka baran lahayd iyo sheekhii iyo dariiqii iyo manhajkaad wax ku baran lahayd iyo ciddii kugu ilaalin lahayd. muxuu ahay haddaad hesho way fududahay, diinta waa la baran karaa. barashadeeduna da' ma ah, barashadeedu da' kastaa baran karta. odaygaa baran kara, habartaa baran karta, dhallinyaraa baran karta, aaday u fududahay. saas daraaddeed baa hadda duqay waaweyn oo waxaad arkaysaa intay diinta farbar bilaabeen hadda meel fiican maraya, meel fiican hadda ay u marayaan ayaa la helaya. oo diinta ilaahay fududeeyey, haddii ilaahay tabaaraka watacaala diinta barashadeeda fududeeyey, seen loo baran karin way fududahay. wax ka adag bay odayaashu hadda baranayaan. markii ay tagaan wadamada Yurub iyo markay odayaashu tagaan iyo duqeyda habruhu markay tagaan oo la yiraahdo caydha la idin siin maayo inaad luqadda Danishka barataan mooyee ama Swedishka, habartii buug bay qaadani oo odaygii subaxdii waa kallihi oo iskuul baa la geli. 2 bilood kadibna waxaad arkay iyagoo jajabsanaya muxuu ahay Danishkii iyo muxuu ahay iyo Swedishkii iyo Finishkii iyo wixii iyagoo jajabsanaya arkay. luqad gaal oo bini aadam ayaad baratay, fartiina waad keentay, inaad ku hadashana waad keentay, inaad wax ku fahantana waad keentay. miyayna suurtagal ahayn qur-aanka inaad fahanto oo aad fartiisa baratood macnihiisa garato adoo habar ama duqa? sayna suurtagal ku ahayn? waa suurtagal, laakiin mushkiladu wax weeye tanna waxoogaa calafaa kaa galay, waxoogaa yaroo waxaa kaa galay hunguri ah oo caydh yar oon qiimo lahayn baad ku raadsanaysaa, ama inaad waddanka ku joogto ama inaad sharci ku qaadato. tan oo aakhiradaadii ay ku salaysan tahay adduunkaagii maslaxadaadiina wax weeye dadaalkeedii waxaan lagaa haynin iyo casiimadii loo baahnaa. saas daraaddeed asal waxaa kaa casiimada, dadaalka in ilaahay ku waafajiyo inaad hesho ciddii iyo qaabkii aad wax ku baran lahayd. wallahu aclam. جزاك الله خيرا. سؤاشان waxay leedahay sheekh mulxidiinta waxay sidoo kale shaki geliyaan cadaaladda ilaahay. waxay leeyihiin hadduu ilaahay cadaalad badan yahay muxuu qofna indhaha u tiraa, qofna indhaha ugu fiicneeyaa, ama qofna faqri u yahay, qofna taajir. mas'aladaas ilaahay afcaashiisa ku saabsanay fiqigeeda waxaa fahmi kara ama garan karaya ciddii baratay, ciddii baadhay. way fududahay ruuxu inuu iska yidhaahdo muxuu ahay hadal culus iska tuuro, laakiin shay walba aqoon iyo barasho u baahan yahay. shay kasta oo ilaahay sameynaya xikmad baa ku jirta, laakiin xikmadda ilaahay afcaashiisa ku jirtaay adiga ma gaari kartaa mise ma gaari kartid? inteese ka gaari kartaa haddaad gaari karayso? xikmad baa ku jirta ilaahay addoommadiisa inuu qaar imtixaano, qaar wax siiyo, qaar qadiyo, qaar ibtileeyo. imtixaan baa ku jira, ayaga waa la fiirinayaa, kuwa kale waa lagu fiirinayaa, nataa'ij baa ka dhalanaysa. imtixaankaa la marinayo nataa'ij adduun iyo aakhara ka dhalanaysa. ilaahay baa sidaa u dhigay tabaaraka watacaala, xikmaddiisaana keentay. haddaan hal miithaala idiin soo qaado faham fiqiga ku jira qur-aanku tilmaamay xikmadda ku jirta. aadamahan
haddii kulligii wada taajir laga wada dhigi lahaa kulliga nin walba wuxuu rabaa la siiyey ma baahna noloshani ma jiri kartaa ya sayna u jiri karin waa wada dheregsantihiin haddaad wada dheregtaana mid walba wuxuu rabay la siiyo ya ma socon karto sayna ku soconaynin adiga bini aadan baa tahay soo meeshaad ku saxaroon lahayd uma baahan meeshaad ku kaaji lahayd ma u baahan tahay yaa kuu qoday anigii kuu qodi lahaa taajir baan ahay kuuma baahni ya soo guri in lagu dhiso uma baahni yaa kuu dhisay fuundi baahan ya oo raba inuu meeshaa wax ka helo baa guri kuu dhisay isaga musqusha kuu qoday guriga waxa kaaga adeegayo shaqada kaa qabanayo waa ruux baahan soo saas ma midka gaadhiga kuu keenaya ku kaxaynaya xagga ku keenaya baahi baa u geynaysa inuu baabuurkan wax ka helo bini aadanka inuu baahanaado liyattakhida bacduhum bacdan sukhriya haddii la waayo noloshani ma jiri karto soomaalit sidaas daraaddeed waa hal mithaal waay ilaahay muu dadka wada dherjiyuu leeyahy war hadduu dherjiyo oo cid walba wixiisa la siiyo aadamo isku xidhan oo isu baahan oo baahidiisii kala helaya oo wada ganacsanaya oo shaqo isu qabanaya xaggee laga heli laha ma la heleen ilaahay baa saa u dhigay tabaaraka wa tacaala waa xikmad ka mid a kan muxuu u qadiyey isagaasaa yeelay xikmaddiisa waa laakiin xikmadda ku jirta adiga ma heli kartaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waa caadil cadaaladdiisana waxaa ku tusaya kan uu sidaa yeelayna ilaahayga tabaaraka wa tacaala abuurtay baa sidaa yeelo maslaxadiisa u arkay kan uu sidaa yeelayna isagaa sidaa yeelo maslaxadiisa u arkay sideedabana maslaxadu waxay ku jirtaa sidii ilaahay wax u dhigay tabaaraka wa tacaala cadaaladuna waxay ku jirtaa sidii ilaahay wax u dhigay tabaaraka wa tacaala laakiin bini aadamka inta badan aan baranin meel dhow buu wax ka fiirinaya meel aan fogeyn ayuu wax ka fiirinaya sidaas daraaddeed buu ilaahay maagi oo ilaahay caayi oo cadaalad darro ku sheegi oo uu muxuu ahaay aflagaadayn laanna waxa weeye waa jaahil aan ilaahay aqoonin tabaaraka wa tacaala ilaahay marka waa caadil waxyaalahan addoommadiisa uu ku samaynayana ama waa bifadlihi ama waa bicadlihi kii uu dheeraad siiyo wax siiyeyna fadli weeye kan uuna siininna cadaaladdiisuu kula dhaqmay cid ilaahay wax kulana ma jirto soo ma adiga goormaad ilaahay wax ku yeelatay goormaad dayn ilaahay ku yeelatay goormaad ku yeelatay inuu sidaa kaa dhigo ma ilaahay baan wax ku leenahay addoommadiisii baan nahay siduu doonu tasarufayaa kuu dheeraad siiyeyna waa fadli kii uusan siinin oo ka qadiyeyna waa cadaalad buu kula dhaqmayaa marka wax weeyaan waa arrin hadal aad iyo aad u culus oo khalada waa hada billahi tawfiiq